Hello, waxaan soo dhowaynayaa in ay balqiyaasaan machadyada DCYF Complex, daryeelka carruurta baahida FAN, bandhig guudmar. Xeerka bilowga carruurta ee carruurta FSKA wuxuu hagayaa waaxda carruurta, dhalinyarada iyo qoysaska DCYF si loo qaybiyo lacagaha si kor loogu qaado deegaannada loo dhan yahay, ugu yaraan xadidan iyo bixiyayaasha taageerada u adeega carruurta leh dib u dhac kororhka, naafada, baahiyaha dabeecadda ama kuwa kale ee u gaarka ah baahiyo. Lacagaha waxaa loo qaybiyaa iyadoo loo marayo sanduuqa baahiyaha Complex. FSKA waxaa meel mariyey sharci dejinta sannadka 2021 qoondaynta miisaaniyadda guud ee sharci dejinta ee baahida adag ee miisaaniyadda waxay u dhaxaysaa 2 sannadood oo maaliyadeed, sannad maaliyadeed 2022 iyo sannad maaliyadeed 2023. Buuggani wuxuu diiradda saarayaa wareegga koowaad ee deeqaha la siinayo guga 2022. DCYF isticmaali doontaa natiijada wareegga koowaad si ay u qaybiyaan iyo nadiifin barnaamijka hore u socda. Detailiska wareegga mustaqbalka la sii dayn doonaa taariikh dambe. Ujeeddada sanduuqa baahiyaha carruurta ee daryeelka carruurta waa in la toosiyo maalgelinta daryeelka carruurta ee hore iyo bixiyayaasha waxbarashada. Waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo jawi loo dhan yahay, ugu yaraan xakamaynta iyo bixiyayaasha taageerada u adeega carruur leh dib u dhac horumarineed, naafo, baahiyaha dabeecadda ama baahiyaha kale ee gaarka ah. DCYF waxay tixgelin doontaa soo jeedinta maalgelinta ee bixiyayaasha codsiga deeqda. Deeqdani waxay u shaqayn doontaa si ka duwan deeqaha hore ee DCYF, halkii DCYF xisaabinta xaddiga deeqda ku salaysan sifooyinka la garanayo ama xarun ama ku abaalmarinta bixiye kasta qadar go'an oo maalgelin ah. Bixiyayaasha waxay codsan doonaan xaddiga lacagta ee ka caawin doona inay daboolaan baahiyahooda. Waxaan rajaynaynaa in bixiyayaasha ay qiimayn doonaan baahida ilmaha carruurta ee daryeelkooda iyo sida shaqaalahooda hadda jira, xarumaha ama tababarka loo xoojin karo si ay u daboolaan baahiyahaas kadibna u isticmaalaan macluumaadkan si ay u sameeyaan codsi xog ah oo u oggolaanaya inay horumariyaan adeegyadooda. Bixiyayaasha waa inay codsadaan ugu yaraan $5,000. Abaalmarinta ugu badan ee la soo jeediyey waa $100,000. Inkasta oo bixiyayaasha ay codsan karaan wax ka badan haddii ay qabaan baahi adag, DCYF waxay beddeli kartaa cabbirka abaalmarinta ama qaabka wareegga dambe ee deeqda iyadoo qayb ka ah nidaamka dib u habaynta deeqda. Tirada iyo heerka abaalmarinta ayaa awood u siin doona DCYF in ay taageerto tiro ballaadhan oo ah bixiyayaasha leh baahiyo kala duwan. Deeqda waxaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo bixinta shaqaalaha, adeegyada daaweynta, hagaajinta xarumaha si ay u hoggaansamaan shuruudaha helitaanka ADA ama baahiyaha dabeecadda, qalabka iyo qalabka taageerada iyo la qabsiga, iyo ama tababarka macallimiinta. Sanduuqa baahiyaha carruurta ee daryeelka carruurta waa deeq tartan ah. Soo gudbinta codsi ma dammaanad qaadayso in bixiyaha u qalma uu heli doono deeq. Codsadayaasha u qalma waxay heli karaan oo keliya funds baahiyaha Complex mar kasta sannad maaliyadeedka gobolka. Xaq u yeelashada bilowga ah ee deeqda guga 2022 waxay ku koobnaan doontaa in la furo bixiyayaasha daryeelka carruurta ee shatiga leh ama shahaado leh, kuwaas oo u adeegay carruurta helaya kaalmada dawladda iyada oo loo marayo
nidaamka lacag bixinta adeegga bulshada SSBS ugu yaraan 1 bil inta u dhaxaysa Sebteembar 1, 2021 iyo Febraayo 28, 2022 waxayna sheegteen lacag bixinta Maarso 31, 2022 si aad ugu qalanto bixiyayaasha waa inay sidoo kale haystaan carruur hadda ku qoran daryeelkooda kuwaas oo qaba baahi dabeecadeed dib u dhac kororeed naafo ama baahiyo kale oo gaar ah wareegyada mustaqbalka ee deeqda xaq u yeelashada ayaa ballaaran doonta inay ku jiraan bixiyayaasha daryeelka carruurta ee shatiga leh ama shahaado leh oo ay ku jiraan mushaharka gaarka ah iyo qoyska ka baxsan liisanka saaxiibka iyo deris FFN bixiyayaasha u adeega carruurta helaya kaalmada gobolka bixiyayaasha u adeega carruurta helaya kaalmada gobolka bixiyayaasha waa inay haystaan carruur hadda ku qoran daryeelkooda kuwaas oo qaba baahida dabeecadda dib u dhaca koritaanka naafada ama baahiyaha kale ee gaarka ah ee u qalma shuruudaha oo faahfaahsan wareegga mustaqbalka ayaa la siin doonaa taariikh dambe dhammaan bixiyayaasha waxbarashada hore waxaa looga baahan yahay inay haystaan koontada bixiyaha wareejinta WA Compass ka hor inta aan la dhammaystirin codsiga sanduuqa baahiyaha daryeelka carruurta codsigu wuxuu kaa rabaa inaad ka jawaabto su'aalaha ku saabsan barnaamijkaaga iyo qorshayaashaada isticmaalka lacagaha deeqda haddii la bixiyo DCYF waxay si adag ugu talinaysaa inaad dib u eegto codsiga ka hor inta aadan codsan si aad u qorto jawaabahaaga dib u eegis ka soo horjeedda cutubka la bixiyey oo hubso inaad ku qanacsan tahay saxsanaanta iyo dhammaystirka jawaabahaaga haddii aad rabto inaad caawimaad dib u eegto codsigaaga oo ay ku jiraan qorshaha aad ka soo jeedisay ee lacagaha fadlan la xiriir waaxda hawlgalayaasha farsamo codsiyada lama eegi doono ilaa muddada codsiga la xiro ma jirto wax faa'iido ah oo lagu codsanayo goor hore DCYF waxay kugula talinaysaa inaad qaadato wakhtigaaga buuxinta codsiga iyo dib u eegista jawaabahaaga DCYF waxay dhiirigelisaa codsadayaasha aan lahayn khibrad qoraal deeq si ay u codsadaan kama takoorno codsiyada ku qoran luuqadda aan ka ahayn Ingiriisiga ama codsiyada leh typos ama khaladaadka naxwi ahaaneed DCYF waxay bixin doontaa dhammaan qalabka luuqadaha Ingiriisiga Isbaanishka iyo Soomaaliga bixiyayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay codsiyadooda ku soo gudbiyaan luuqadda ay dareemayaan inay si fiican u awoodaan inay isu muujiyaan Ingiriis Isbaanishka Soomaali ama isku dhafan si loo hubiyo in dhammaan codsiyada ay helaan tixgelin siman codsiyada lagu soo gudbiyey Isbaanishka ama Soomaaliga waxaa loo turjumi doonaa Ingiriisi waxaana dib u eegi doona xiriiriyayaasha helitaanka luuqadda DCYF isku duwayaasha helitaanka luuqadda waa kuwa ku hadla afka Isbaanishka ama Soomaali kuwaas oo ka shaqeeya hubinta in turjumaaduhu ka turjumayaan macnaha dhaqanka iyo midabada macnaha ee ku jira codsiga asalka ah cadamaynta iyada oo loo dhammaystirayo codsiga sanduuqa baahiyaha daryeelka carruurta codsadayaashu waxay ku heshiiyaan shuruudaha iyo xaaladaha soo socda waxaan caddaynaynaa in macluumaadka aan ku bixiyey codsigan waa mid run ah oo sax ah waxaan ku bixin doonaa abaalmarinta sanduuqa baahiyaha daryeelka carruurta ee iibsashada lagu qeexay codsigan deeqda 1 sano gudahood ayaan ku qarash garayn doonaa lacagaha baahiyaha dhibaatada ah iyada oo la dhammaystirayo codsiga sanduuqa baahiyaha daryeelka carruurta codsadayaashu waxay ku heshiiyaan shuruudaha iyo xaaladaha soo socda
waxaan soo sheegi doonnaa in DCYF ku saabsan sida aan ku qaataan fund baahiyaha complex daryeelka carruurta. Tani waxaa ka mid noqon doona haysashada risiidhada iyo dukumentiyada dhammaan iibsiyada lagu sameeyey lacagta deeqdan, iyo sidoo kale buuxinta iyo soo gudbinta warbixinno biloodle ah iyadoo la isticmaalayo baadhitaan in DCYF ay bixin doonto. Haddii aan xidho liisankayga ka hor inta aan wareegga 1 sano dhammaado, waxaan ku soo celin doonaa wixii lacag ah oo aan la isticmaalin DCYF. Waxaan weli mas'uul ka noqon doonaa inaan bixiyo warbixinta iyo risiidhada DCYF oo faahfaahinaya lacagaha aan ku bixiyey iyadoon loo eegi doonin xaaladda furan ama xidhan. Iyada oo la dhammaystirayo codsiga sanduuqa baahiyaha daryeelka carruurta, codsadayaashu waxay ku heshiiyeen shuruudaha iyo xaaladaha soo socda. Haddii aanan u hoggaansamin shuruudaha warbixinta DCYF ama aanan muujin karin in lacagaha lagu kharash gareeyey si waafaqsan codsigayga, haddii aanan u hoggaansamin shuruudaha warbixinta DCYF ama aanan muujin karin in lacagaha lagu kharash gareeyey si waafaqsan codsigayga, waxaan ku xadgudbayaa shuruudaha dhaqaalaha daryeelka carruurta ee baahida iyo waxaan ku celin doonaa deeqda DCYF. Xulashada iyo abaalmarinta. Sanduuqa baahiyaha daryeelka carruurta waa deeq tartan rasmi ah. Dhammaan codsiyada la helay muddada codsiga ayaa dib loo eegi doonaa. Marka hore, dhammaan codsiyada waxaa lagu dhalin doonaa iyadoo loo eegayo goolasha. Keliya codsiyada in gool ka sarreeya marinka gaarka ah waxaa loo tixgelin doonaa maalgelinta. Haddii codsiyo badan ay xaq u leeyihiin maalgelinta marka loo eego DCYF ay awood u leedahay inay maalgeliso, hay-addu waxay mudnaanta siinaysaa codsiyada iyadoo la eegayo arrimo gaar ah. Marka codsadaha la siiyey deeqda, dhammaan lacagaha waa in lagu bixiyaa 1 sano gudahood marka la helo deeqda iyo inta lagu guda jiro baaxadda mashruuca la soo jeediyey. Codsadayaashu waxay heli karaan dhibco sheegaya inay u baahan yihiin wax dhibco badan oo sharaxaad ka bixinaya sida codsigu u caawin doono ilmaha carruurta daryeelkooda, iyo dhibcaha ugu badan ee sharaxaya cilmi baarista, qorshaynta ama habka keenay go'aankooda. Bixiyayaasha ku yaalla cidlada daryeelka carruurta ee helitaanka xad-dhaafka ah iyo kuwa u adeegaya ama ku yaalla bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo waxay heli doonaan dhibco gunno ah. Bixiyayaasha hela dhibcaha ka sarreeya marinka qaarkood waxaa loo tixgelin doonaa inay u qalmaan maalgelinta. Haddii DCYF ay hesho codsiyo xaq u badan, ay awoodaan in ay maalgeliyaan codsiyada, waxaa la siin doonaa mudnaanta sida hoos ku qeexan. DCYF waxay eegi doontaa dhammaan codsiyada si loo go'aamiyo isbeddellada sida qaybaha kharashka ugu badan ee la codsaday, waxayna hormarin doontaa shuruudaha mudnaanta leh ee ku salaysan xogtan. Sababtoo ah tani waa deeq cusub oo DCYF ah, hay-addu waxay rabtaa in ay hubiso in shuruudaha mudnaanta ay ku jiraan baahiyaha ay muujiyaan bixiyayaasha. Isticmaalka xogta la soo aruuriyey dhammaan codsiyada DCYF waxay qaybin doontaa ikhtiyaarro kala duwan oo loogu talagalay cidda helaysa maalgelinta, iyada oo la tixgelinayo inta maalgelinta la heli karo. Tusaale ahaan, haddii DCYF mudnaanta codsiyada ay ku jiraan kharashkan, maadaama bixiyayaashu ay muujinayaan baahi weyn. Habka ugu dambeeya waxaa la heli doonaa kadib markii go'aaminta la sameeyo. Abaalmarinta boostada. Haddii lagu siiyo deeq, waxaad u baahan doontaa inaad soo diyaargarowdo inaad soo gudbiso risiidhadaada
waxyaabaha iyo kharashaadka aad ku isticmaashay deeqda. waxaa sidoo kale lagaa rabaa inaad soo gudbiso warbixinno biloodle ah oo ku saabsan horumarkaaga adigoo isticmaalaya baadhitaan ay DCYF bixin doonto. marka codsadaha la siiyo deeqda, dhammaan lacagaha waa in lagu qarash gareeyaa 1 sano gudahood marka la helo deeqda iyo inta lagu jiro baaxadda mashruuca la soo jeediyey. shuruudaha warbixinta waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo deeqaha hadda iyo mustaqbalka. nidaamkani wuxuu kaa caawin doonaa DCYF iyo deeqaha bixiyayaasha. nidaamkani wuxuu ka caawin doonaa DCYF iyo deeq-bixiyayaasha inay aqoonsadaan arrimaha soo koraya inta ay jiraan wakhti lagu xallin karo. haddii bixiyayaasha ay muujiyaan arrin ku saabsan warbixintooda, DCYF waxay la xidhiiri doontaa si ay u bixiyaan kaalmo dheeraad ah ama bixiyayaasha kaalmada farsamo si toos ah ula xidhiir. macluumaadka lagu bartay sahan kuwaas oo ka caawin doona qaabka DCYF iyo nadiifin barnaamijka deeqda ay wareeg mustaqbalka. warbixinta deeqda biloodlaha ah ayaa loo baahan doonaa ilaa deeq-bixiyuhu uu ka qaatay lacagta oo dhan ee lacagaha. rubuc kasta, deeqaha ayaa soo gudbin doona sheeko ku saabsan horumarkooda. ka jawaabaya su'aalaha soo socda. miyaad rajaynaysaa isbeddel kasta oo ku yimaada miisaaniyadda asalka ah? haddii ay sidaa tahay, fadlan sharax. ma jiraa farqi u dhaxeeya natiijooyinka loogu talagalay iyo natiijooyinka dhabta ah ee markan mashruuca? haddii ay sidaas tahay, maxaad ka aaminsan tahay inay yihiin sababaha? waa maxay hagaajin aad samaynta haddii ay jiraan? maxaad ilaa iminka ka baratay waxyaabo cajiib ah? ma jiraan wax kale oo aad jeclaan lahayd in aad noo sheegto qorshaha mashruuca, wakhtiga ama miisaaniyadda? tusaale ahaan, ma waxaad la kulantay wax caqabado ah? ma u baahan tahay caawimaad dheeraad ah ama caawimaad wakhtigan? haddii ay warbixinta aan la soo gudbin bixiyaha, waxaa loo tixgelin doonaa xadgudub ku ah heshiiska deeqda, waxaana laga yaabaa in looga baahan yahay inuu soo celiyo maalgelinta. bixiyayaasha waxaa looga baahan yahay in ay dhowraan dhammaan risiidhada iibsashada lagu sameeyey sanduuqa baahiyaha daryeelka carruurta muddo 5 sano ah. waxaana laga codsan karaa in ay risiidhada u gudbiyaan DCYF. haddii bixiyuhu aanu awoodin in ay soo gudbiyaan risiidhada, waxaa laga yaabaa in looga baahan yahay inay qayb ama dhammaan dhaqaalaha ku soo celiyaan gobolka Washington. DCYF waxay si aan kala sooc lahayn u dooran doontaa 10% deeqaha si ay u soo gudbiyaan risiidhada iibsashada la xidhiidha deeqda. bixiyayaasha kuwaas oo loo soo doortay dib u eegista risiidka waxaa la ogeysiin doonaa kadib markii muddo 1 sano ah la xidho muddada kharashka deeqda. DCYF waxay aqoonsan tahay in ay jiraan siyaabo badan oo lagula socdo dhammaan risiidhada lacagaha deeqda. hoos waxaa ku qoran fikrado si aad u bilowdo. DCYF waxay aqoonsan tahay inay jiraan siyaabo badan oo lagula socdo dhammaan risiidhada lacagaha deeqdaada. hoos waxaa ku qoran fikrado si aad u bilowdo. ka dhig dhammaan risiidhada. qodobkan laguma badin karo. horumarinta nidaamsan oo xaraynta risiidhada ayaa kaa badbaadin kara wakhti badan haddii laguu doorto dib u eegista risiidka. risiidhada iskaan oo ku hay ugu yaraan 5 sano. tani waa mid taxaddar leh haddii khadka risiidku uu baaba'o. haddii DCYF aanu akhrin karin risiidka, ma awoodi doonaan inay aqbalaan iyada oo qayb ka ah dib u eegista risiidka. DCYF oggolaanaya risiidka elektaroonigga ah ee lagu kaydiyo.
si kastaba ha ahaatee waa fikrad wanaagsan in dib loo soo celiyo risiidhada lagu kaydiyey haddii ay dhacdo in aad shilalka adag qaado sawir risiidhada leh casrigaaga tani waa fikrad fiican oo waxaa jira tiknoolajiyadda maanta waxaad samayn kartaa qoraal ku saabsan risiidka kadibna sawir qaado laakiin xasuusnow inaad dib u soo celisid faylasha app sidoo kale risiidhadaada ayaa kuugu soo dirtay haddii la bixiyo tani waa fikrad aad u fiican iyo tiro ka mid ah iibiya iska ilaali lacag caddaan ah tani waa mid aad u muhiim ah kaash waa adag tahay in la raadiyo fududdahay in la isticmaalo iyo ku dhowaad aan macquul ahayn in la heshiisiiyo risiidhada isticmaal kaarka debit iyo kredit waxay ku siinayaan weedho bil kasta ah oo si fudud loogu dhigi karo risiidhadaada ha ku tiirsanaan bayaanka bangiga bayaannada kaarka daynta ama jeegagga la joojiyey kuwani waa muhiim weli aan ku filnayn risiidhada dhabta ah DCYF waxay arki kartaa DCYF waxay arki kartaa credit card in aad ku qaatay 435 Home Depot laakiin waxay wax fikrad ah ka dhab ahaan aad soo iibsatay waxay noqon kartaa inaad iibsatay soolay dubo halkii aad ka heli lahayd ADA handrails aad ku qoran codsigaaga deeqda ujeeddooyinka diiwaangelinta bayaanka bangiga bayaannada kaarka daynta iyo jeegagga la joojiyey waa kuwo aad u fiican laakiin faahfaahinta macaamilka oo risiidku bixiyo waxay muhiim u tahay dib u eegaha risiidka DCYF weydiiso caawimaad haddii aad u baahan tahay nidaamka dib u eegista risiidka looma jeedo inuu noqdo cabsi haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan waxa risiidhada iyo dukumentiyada loo baahan yahay fadlan weydii waxaan halkan u joognaa si aan kuu caawinno DCYF waxay la shaqaynaysaa machadka qiyaas iyo codadka berri si ay u bixiyaan kaalmo farsamo oo xooggan oo luuqado badan labadaba abaalmarinta hore iyo dib u marinta haddii aad u baahan tahay kaalmo farsamo oo ay ku jiraan kaalmada luuqaddaada hagidda diyaarinta iyo helitaanka codsiga ama su'aalaha ku saabsan kharashka iyo kaydinta risiidhada iyo dukumentiyada waxaad la xidhiiri kartaa machadka Imagine ama Voices of Tomorrow The Imagine Institute taleefanka 206 email ccsg@imaginewa.org Voices of Tomorrow taageera bixiyayaasha daryeelka carruurta ee bariga Afrika taleefanka 206-278-8290 email childcaresupport@tomorrowvoices.org